السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaantiin walaalayaal soo dhawaada insha Allah muuqaalkan waxaan ku sharixi doonaa saddex ganacsi warshadeed oo bilaabi kartid sanadka 2020 dabcan waxaa jirta dad badan oo kanaalka ku xidhan oo arrimaha fursadaha ganacsiga in ka hadallo fursadaha waxbarashada iyo waxyaalaha kale ee faa'iidooyinka qof dadka bini'aadamka u leh oo inagu xidhan ay nala soo xidhiidheen iyagoo doonaya talooyin ku saabsan ay lacagtooda ku maalgashadaan ama si ay fursado ganacsi kaga sameeyaan dadkaas oo moodid inay badi doonayeen meel ay saamiyaal ku darsadaan shirkado shaqeynaya ama si warshado markaa shaqeeya oo iyagana faa'iidada hadhowto qayb ka mid ah ay helaan wixii ka soo baxa marka walaalayaal waxaan idin soo bandhigayaa maanta haddaad iskaashataan saddex warshadood ood bilaabi kartaan badeecadoodana loo baahan yahay faa'iido badanna ay kasoo xiran karto guryo kasta oo Soomaaliyeedna looga baahan yahay aan labadii sanaan waddanka kala joogan soo ogaaday inay fursadi ku dhex jirto saddexda badeecadood iyo qaabka loo isticmaalayo iyo qaabka loo gadayo ayaan insha Allah muuqaalkan gudihiisa ayaan ku sharixi doonaa marka sayn la wada socono waxaan la xiriiray shirkado badan oo weydiinaya inay saamiye furan yihiin shirkadaha waaweyn ee la hubo faa'iidadooda ama si qofka uu khasaarahoodu uu iska ilaalin karo marka waxa ii soo baxday in badi shirarkii shirkadihii markaa shaqeynayay waqti xaadirkan faa'iidada sameynayay inay yar yihiin boosasna aynan ka banaanayn sidaa daraadeed waxaan in halkan ku soo gudbinayaa laftigaagu saad shirkad ku noqon kartid ama saad dhaqaale ku abuuri kartid adiga oo isticmaalaya saddexda fikradood waxaan aas uga dhigay tusaale aan ka soo qaatay oo kale nin hadal uu yiri Bill Gates loo yaqaano dadka adduunka ku taajirsan qayb ka mid ah ayaa wuxuu shirkadda Microsoft markan asaasayay waxaan u sameeyay badeecad inaan sameeyo guri kasta geli karto adduunka ka mid ah guri kasta laga isticmaalo marka waxaan ku fikiray inaan guri kasta aan galo oo badeecadaydu gaadho si aan dhaqaale badan ku yeesho xaqiiqatan wuu sameeyay emailka hotmailkan maanta isticmaala isagaas kale Microsoft Word waxa lagu qorayo isagaas kale laptopyada iyo waxyaalo badan iyo lama soo koobi karo intaas oo badeecadood adduunka daafiisa gaadhay marka badeecadaadu waa inay noqoto wax markasta loo baahan yahay guryuhuna householdkuna uu isticmaalo marka sidaa daraadeed walaalayaal sharaxada kooban marka ka soo laabano ganacsiga koowaad ayaan halkan ku bilaabaynaa ganacsiga koowaad insha Allah muuqaalkan ku soo gudbinayno waa inaad samaysid warshad yar oo kooban oo soo saarta adeega tamaandhaqa sacda tomato paste plant wax la dhaho oo adeega la xiriira waxyaalaha tomaatada ama tamaandhada hadba saa u taqaanid waa badeecad guri kasta laga isticmaalo suugada lagu darsado oo cuntooyinka lagu darsado oo hadda iyadoo ketchup iyadoo basbaas lagu daro iyadoo intaas oo kala duwan hoteelada meelo badan laga isticmaalo marka walaalayaal badeecadan waxaad sameyn kartaa in aad maxay ahaydey marka aad soo iibsatid mashiinka lagu diyaariyo waxaad sidoo kale aad heli kartaa tamaandhadii oo gawaari waaweyn oo xamuul lagu keeno Ethiopia laga keeno oo qiimo aad iyo aad u hooseeya lagu keeno oo noocii cascasa ama inaad qorax u dhigtid oo kale iyadoo cascasa isla markiiba aad diyaarisid aad u bedeshid tamaandhaqa sacda saan ka warhayo kartoomadeeda iyo waxeed oo dhan dalka dibadiisa ay ka soo gashtaa waqti la sameeyay iyo wax lagu daray iyo caafimaadkeeda midna lama hubo haddii aad waddanka ku samaysid warshad soo saarta sida hadda saamuunta oo kale haysanaa furaashada oo kale haysanaa oo warshada biyaha oo kale haysanaa waxa laga gataa waa lagu kalsoon yahay wax waddanka lagu sameeyay marka haddaad samaysid tamaandhaqa sacdaas waxa ka gadanaya walaalayaal bakhaarada waxa ka gadanaya hoteelada cuntooyinka VIP ga sameeya ama hoteelada cuntooyinka kariya maalin kasta waxay ka qaadanayaan 20 kiilo ama 15 kiilo ama 10 kiilo oo tamaandhaqa saaca hadda soo diyaarisid waxa ka qaadanaya groceryal ama grocery shops dukaamada yaryar adeega lagu gado suuqyada wadacda adeega lagu sameeyo meelo badan aan la soo koobi karin ayaa ka gadanaya tomato plant paste yani waxaan afka qalaad loogu yaqaano mashiinada yaryar ee soo saara tamaandhaqa sacda wadamada Hindiya, Indonesia, Shiinaha wadamo badan baa lagu sameeyaa laga helaa warshadaha ama shirkadaha sameeyana waxa weeye mashiinka markaad ka iibsatid shaqaale ku tababaray xataa ku raacinayaan qofku isaga markaa looga baahan yahay qaabku hirgelin lahaa in uu markaa guda galo oo maxay ahayd shirkadan oo asaasi lahaa dabcan waxay u baahan tahay marka loo bambaxayo consultant ama la talin ama yani dad warshadaha khibrad u leh oo kale inaad la kaashatid dhaqaale ku bixisid ama wadamada laftirkooda aad indhaha ku soo aragtid marka tomato paste making waxa weeye waa fikrad ganacsi oo guri kasta ma dareemi kartaa suugadii lagu darayo suqaarkii lagu darayo aad iyo aad loogu baahan yahay la isticmaalo waa fikradda koowaad ganacsi insha Allah muuqaalka ku soo gudbinayno fikradda labaad walaalayaal waxa weeye qalab la isticmaalo xilliga dhismaha oo waxa weeye waddanka si la socono waxa aad u socda ama ha noqoto dhisidda guryaha ama ha noqoto
soo saarista qalabka guryaha furniture-ka ha noqoto qalab yar oo aad loo isticmaalo wadanka banaankiisa laga keeno ayaad samayn kartaa oo yacni aad bilaabi kartaa fursado badan ay kugu caawinayaan inaad qiimo jaban aad kusoo saartid qalabkaasi walaalayaal waxa weeye waa musbaar ama steel nail waxa afka qalaad lagu dhaho oo ah musbaarkaasi bahalkan yare la garaaco oo maartay jingada ama dadka waxaan filayaa reer koonfur waxa u yaqaanaan tarniig ayaa loo yaqaanaa oo kale xilliga dhismaha la isugu dhajiyo musbaarkaasi walaalayaal waxa weeye isagoo kiilo ah isagoo 2 kiilo ah isagoo 3 kiilo ah ay bakhaarada dhismayaashu ay gadaan waxa weeye waana qalab baahidiisu iyo isticmaalkiisu aad iyo aad u badan yahay sidoo kalena laynoo soo dhoofiyo oo dalka dibadiisa ka yimaada waxaan la soconnaa geerashyada meelaha qashin inay biro badan oo dib loo shiili karo oo dib loo warshadeyn karo recycle lagu sameyn karo inay buuxaan balse hadda waxaan arkaa wadamada dariska inta yimaadaan inay biraha qashinka ay naga gurtaan waxay bilaash uma guranayaan qiimo jaban oo raqiisa ama si bilaash ay ku qaataan dib ay u warshadeynayaan marka inta dib u warshadaysid masaabiirtan adigu soo saar oo shirkadaha dhismaha hargeysa xamar maxay ahayd garo meel kasta meeshii ku yaalaan aad u gudbisid oo kaga iibisid faa'iido badan iyo ganacsi badan ayaad ka sameyn kartaa dhismuhuna waa wax xoog badan ee socda qalabada kala duwan ee alwaaxyada iyo qoriyaasha iyo maxay ahayd qalabada fadhiga guryaha oo kale iyo aad iyo aad bay masaabiirta ugu baahan yihiin marka warshad yar oo nail making ah ka soo gado wadamada warshadaha ku fiican bilow waa waxaan hore wadanka loogu sameyn aad iyo aad baa lagaga iibsanaya dhaqaale badan ayaa kaaga soo baxaya ganacsiga ugu dambeeya ee saddexaad insha Allah in rabno inaan muuqaalka isagana ku xusno waa warshad soo saarta qalabka kijooyinka ama maacuunta oo kale waxa afka qalaad loogu yaqaano kitchen utensil manufacturing oo ama factory oo kale loogu yaqaano qalabkaasi seen loo socono gebi ahaanba dalka dibadiisa ayuu noogu yimaadaa waa warshadahan wadankeena weli aan laga bilaabin waxaa jirta inay maacuuntu aad loo iibsado aana loogu baahan yahay meheraduhu ay u baahan yihiin guryuhu ay u baahan yihiin ay badeecado joogto oo soo noqnoqda dalka dibadiisa xataa markaa samaysada u dhoofin kartid uu yahay oo kale waxyaalo badan ayaa naga ay ka sameyn karnaa qalabka maacuunta qofku wuxuu sameeyaa oo la socotaan waxa la sameyn karaa qalabka maxay ahayd sufurada galaasyada ah oo kale ama dhalooyinka ah wadankeena ilaahay wuxuu aad ugu deeqay ciida niista loo yaqaano ama ciida jilicsan oo ah ciid la shiilo oo galaaska laga sameeyo dhalada oo kale laga sameeyo waxaad sameyn kartaa bakeeriyaashi waxaad sameyn kartaa maxay ahayd bahalihii biyaha lagu cabi jiray oo dhala waxaad sameyn kartaa intaar oo nooc oo yani dhalooyinkii cadarada lagu shubi jiray waxyaalo badan ayaad ka sameyn kartaa oo maacuun u dhigmi karo oo kale waxaad sameyn kartaa maxay ahayd birihii oo kale waxyaalihii ahaa macdanta oo kale sida joogagii sida blaydadii sida maxay ahayd baaquli baad u taqaana ma filaya jabcadii oo kale sida mindidii oo kale sida malgacadihii oo kale qaadooyinkii marka qalabka maacuunta warshad ah waxaa jirta warshado badan oo sameeya qalabka maacuunta iyagoo caaga iyo iyagoo bir ah iyo iyagoo dhala ah iyagoo caaga wadankeena iyo caag ba ka buuxsamay u baahan in dib loo warshadeeyo recycle lagu sameeyo sidoo kale qalabkaas ayaa caaga iyagoo aba soo saari kartaa iyo ciidii baad haysataa iyagoo dhala ba soo saari kartaa birtii oo iska badan baad helaysaa iyagoo bir ah ba soo saari kartaa marka warshad soo saarta qalabka maacuunta guryaha waxaan filayaa way yar tahay ama way kooban tahay tacaaga way jirtaa oo waan arkaa qalabeeda caaga iyadoo mararka qaarkood la soo saaro laakiin kuwii kala dhiman waana wax la dhoofin karo wad ganacsiyaad bilaabi kartid marka walaalayaal ganacsiyadan inta muuqaalka soo gabagabeyn waxaan kula talin lahaa in wadamada warshadaha ay ku fiican yihiin oo kale ama galbeedka Europe ha noqdo Western Europe ama ha noqdo maxay ahayd Asia sida Hindiya China Japan oo kale oo magaalooyin dhan ay u xiran yihiin warshadahaas nooca wax soo saara oo qalabkoodii ka iibin kara shaqaalihiina ku raacin kara inaad la xidhiidhaan internetka research badan ka sameysaan email la dirtaan telefoon aad dirtaan aad waqti gelisaan insha Allah isku xidhataan oo 5 qof 6 qof iskaashataan lacagta isu geysaan aad noqotaan dad wax soo saar loo iyaga saami marka lagu darsado dhaqaalahoodu iyaga faa'iido soo saaro dadkana dalka dibadiisa iyo gudihiisana wax kala dhoofiyo ummadana anfaca
guul badan baan idin rajeynayaa. Muuqaalkan waxaad igala soo xiriiri kartaa Instagram-kayga oo insha Allah shaashada idiin soo saari doono. Sidoo kale linkigiisana xagga hoose idinku soo dhigi doono. haddii aad ka heshay fikradahan ganacsi aan kusoo gudbiyay iyo muuqaalada faa'iidada, fadlan muuqaalka waxaad ka caawisaa like adoo saaraya, oo dabcan waxay weeye faafinta muuqaalkan dad badan inuu gaadho ayaa like ka caawisaa sida maskaxda YouTube-ka ay ku shaqeyso. wixii kale ee ra'yi aan ka tagayna qaybta comment-ka waan akhriyaa igu dhaafa. aad iyo aad baan dhamaantiin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.